kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo joogtaanba halkani waa hoyga Soomaalida holan oo aad si toos ah ugala socotaan Amsterdam iyo FMT-da 99.4 MHz iyo barta internetka ee ciwaankeedu yahay dalmar.org. waxaad ku soo dhawaataan dhegaystayaal war wixii caawa adduunweynaha naga soo gaadhay. golaha wasiirada dalkan Holland ayaa maanta bilaabay kala fadhigoodii ugu horeeyay kadib markii dhawaanta xukuumaddu hor keentay boqorada dalkan miisaaniyadda sanadka 2008 iyo 2009. xukuumadda wadaaga ah ee ra'iisul wasaare Peter Balkenende ayaa maanta u soo bandhigi doonta golaha baarlamanka tallaabooyinka iyo sida ay xukuumaddiisu uga shaqaynayso dalka sanadaha soo socda iyo ugu dambeyntii tallaabooyinka lagu dheelitirayo dhaqaalaha waddanka. waxaana kala fadhigan si aad ah loogaga doodi doonaa qaraarada dawladdu ay qaadatay. dhankoodana xisbiyada mucaaridka dalkan Holland ayaa markiiba iyagoo ka biyo diidan sheegay in ay hor keeni doonaan baarlamanka qalado badan oo ay barnaamijka dawladda ku jira. xisbiyada mucaaridka iyo muxaafidka dalkan Holland ayaa lagu wadaa in ay toddobaadada soo socda badiyaan doodahooda ku saabsan sidii wax looga qaban lahaa dhaqaale xumida ka jirta dalka iyo guntigiijiska dhaqaalaha ee ay dawladdu bariyahan dambe ku baaqday. Yukio Hatayama oo ka tirsan axsaabta bidixda dhexe ee waddankaasi Japan ayaa loo doortay inuu noqdo ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Japan, taasoo soo afjaraysa muddo nus qarni ah ama 50 sannadood oo ay dalkaasi ka soo talinayeen xisbiyada liberaalka iyo midigta dhexe ee dalkaasi Japan oo dhawaanta ku guuldaraystay doorashooyinkii ka dhacay dalkaasi. Hatoyama oo 62 jir ah hogaamiyana xisbiga dimuqraadka dalka Japan ayaa dhawaanta si cad ugu guuleystay doorashadii 30 bisha August ee la soo dhaafay. ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Japan ayaa ballan qaaday in uu dhaqaalaha waddanka iyo dadka danyarta ah xaaladooda wax ka bedeli doono. waxaana lagu wadaa in uu dhawaanta ka qayb qaato shirka wadannada adduunka ugu horumarsan ee G20, kuwaas oo shir uga furmayo magaalada Pittsburgh ee ku taala dalka Mareykanka. hay-adda Muslim Human Rights oo ah hay-ad u dooda xuquuqda dadka muslimiinta ay ku nool dalka Kenya ayaa sheegtay in ay jiraan dad badan oo Soomaali ah oo xilliyadii ugu dambeeyay ay qabqabteen ciidamo loo xilsaaray ka hortagga iyo la dagaalanka argagixisada dalka Kenya. mas-uuliyiinta hay-addaasi ayaa sheegay in ay heleen warar cad oo tilmaamaya dad Soomaali ah oo lagu hayo xabsiyada dalkaasi Kenya, qaar kalena loo mastaafriyey dalka Soomaaliya. waxaa intaa raaca in ay hore u jireen dad badan oo Soomaali ah oo ay qabqabteen ciidamada sirdoonka dawladda Kenya, kuwaas oo ay qaarkood u dhoofiyeen xabsiyo ku yaala Kuuba iyo dalka Itoobiya. hay-adda u dooda xuquuqda aadamaha iyo muslimiinta dalka Kenya ayaa ka walaacsan in ay dawladda Kenya sii badiso tallaabooyinka iyo baaritaanada ay ku hayso Soomaalida dalkeeda jooga iyo kuwa ka imaanaya qurbahaba. golaha baarlamanka dalka Faransiiska ayaa daboolka ka qaaday in ay dhawaanta soo saari doonaan sharci adag oo lagaga hortegayo dadka internetka sida sharci darrada ah oo wax uga soo download garaysta. baarlamanka dalka Faransiiska ayaa sheegay in ay iyaga ka go'an tahay in ay wax ka qabtaan dadka sida sharci darrada ah internetka wax uga soo dabula ama uga download garaysta, iyagoo qaarkood ku xadgudbayaan dhammaan qawaaniinta iyo xuquuqda dadka internetku ay wax ku kala gataan. xukuumadda Faransiiska ayaa isku raacday in dib wax looga bedelo xeerarka internetka u yaala, kuwaas oo dhawaanta waxyaabo badan laga bedeli doono kadib cabashooyin ka soo yeedhay shirkadaha u qaabilsan muusiga iyo filimada oo badankoodu suuqi ka xumaaday internetka awgii. xeerarkan ayaa noqon doona qaar adag oo qofkii ku xadgudba 1 sanno laga xidhi doono internetka, laguna ganaaxi doono ugu yaraan 1,500 oo lacagta yuroga ah haddii uu internetka si sharci darro ah wax uga soo download garaysto oo uu sii gado. dalalka midowga Yurub, gaar ahaan dalka Faransiiska, ayaa lagu sheegaa in sanadkii ay dadka internetka sida sharci darrada ah wax uga soo gurtaa filimada iyo heesaha qiimahoodu yahay lacag gaadhaysa balaayiin euro ah. afhayeenka ururka la magac baxay Al-Shabaab ee ka dagaalama Soomaaliya, Sheekh Cali Dheere,
ayaa markii ugu horreysay ka hadlay weerar lagu qaaday nin lagu eedeynayay in uu ka dambeeyey qaraxyo danaha Maraykanka ee geeska Afrika lagu wiiqayay. ninkaas oo dhowaanta Maraykanku sheegay in ay ku dileen weeraro loo adeegsaday 6 ka mid ah diyaaradaha helikobtarka ah oo ay ku qaadeen saldhig ay Soomaaliya ku leeyihiin ururka Al-Shabaab oo ay halkaas ku dileen Saalax Cali Nabhaan iyo 3 ka mid ah ilaaladiisa. afhayeenka Al-Shabaab Sheekh Cali Dheere wuxuu sheegay in weerarkan oo ahaa mid abaabulan lagu qaaday gaari uu watay Saalax Cali Nabhaan ayna dagaalameen isaga iyo 3 ka mid ah ilaaladiisa. afhayeenka ayaa intaas ku daray in ay hubaan in raggaas ay dhaawac ahaayeen markii ay ciidamada Maraykanku qaadanayeen, sidaa darteed dhimashada Saalax Cali Nabhaan aanu xaqiijin karin, isagoo xusay in ay weeraradani yihiin kuwo lagu hayo dadka Islaamka ah ee caalamka ku nool, waajibna ay u leeyihiin in ay iyagu isdifaacaan. halkaad warkaa kala socotaan dhegaystayaal waa hoyga Soomaalida Holan. warkaygii caawana intaas ayuu inoogu egyahay.